gobolkan waa gobol igu qaali ah waa gobol aan jecelahay waxa ii dhaqana ama niyaddaydu tahay waxa ii dhaqana ninka Soomaaliland jecel ee reer Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolada dhexe ee aan jeclayn darafyada Soomaaliland ma aha ogaada anigu xafladii ugu horeysay ee xisbiga 23kii bisha waxaan kala qayb galay reer Laascaanood xafladan maantana waxaan kala qayb galayaa reer Awdal magaalo madaxda Boorame waxaan u jecelay si kaliya laaba waxaan aaminsanahay qarannimada Soomaaliland inaanay ku kamilmayn ilaa la helo darafyada galbeed iyo bari dhowrka qodob waxa wala waxaynu qaadanay systemka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan waxaynu ku ololeynaynaa waxa weeye barnaamij iyo waxqabad waxaynu ku dhaleecaynaynaa cidda xukunka haysta waxa weeye waxqabad la'aan iyo xumaan iyo kala qaybin xisbiga wadani wuxuu ku ololeynayaa oo aan idin tusayaa waxa weeye barnaamijka xisbiga kaasa oo qoraala ayuu ku ololeynayaa wuxuu ku ololeynayaa oo dad islaam aynu nahay oo aynu ashahadanaynaa artikalka 5 ee buugga dastuurka ee halkan ku hayo artikalkiisa 5 qoraalkiisa ah in kalimadda ilaahay sare loo qaado iclaa'i kalimatillah waxaynu kula baayactanay musharaxa aynu wadno inuu diinta islaamka sare u qaado waxaynu kula baayactanay dalkan inuu nabadgeliyo iyo waxqabad iyo horumar ku hogaamiyo kulamaynu baayactamin sida ka muuqata xisbiga kulmiye waxa ka muuqda inuu baayactankiisu yahay qabyaalad inuu baayactankiisu yahay qoloqolo waxqabad ayaynu ku ololeynaynaa nabadgelyaynu ku ololeynaynaa horumar baynu ku ololeynaynaa isbeddelkii uu bilaabay xisbiga udub ee uu ku wareejiyey xukunka iyo dimuqraadiyaddii daahiryaala ka tegey ayaynu ku ololeynaynaa waxaynu ku ololeynaynaa isbeddel khayr qaba inaynu keenno oo dadkan ka badbaadinno abaarta sicir bararka musuqmaasuqa qabyaaladda dhiggeenna inala tartamayaa maanta xukunka talada gacanta ku haya waxay ku ololeynayaan qabyaalad waxay ku ololeynayaan kala qaybin waxay ku ololeynayaan oo aan ka arkay Laascaanood inay mujaahidnimo u sheeganayaan sidii halkan laga sheegay Awdal bay u sheeganayaan waxaanay dareemayn dadkii ssoo jihaaday ee sanamta ahaa iyo dadkii dawladdii markaa jirtay taageersanaa 1991kii 18kii May inay heshiis ku gaareen inay qarannimo wada dhistaan Somaliland soo jamhuuriyadda Somaliland ma wada nihin sanam miyaa la wada ahaa mujaahid miyaa la wada ahaa hoggaanka xisbiga wadani idinku damqi maayo waxaan idin doonayna waxaynu ku heshiinay buu idinku hogaaminayaa dastuurkaasuu idinku hogaaminayaa dastuurkaasaynu ku heshiinno baysino ah dastuurkaasi wuxuu sheegayaa sinaan iyo cadaalad mujaahidnimo kuma qorra ninka mujaahidnimada sheegaya waa nin kala diraya Somaliland weligeedba halgan waa dhici jiray dagaal waa dhici jiray sanam uma horreyn umana dambaynayso halgan jiray bay ahayd inse loo sheegto kuwii halganka aan ku jirin oo lagu takooro waa ka xaaraan xisbiga wadani wuxuu isla doonanayaa Somalilandta ay kala faquuqeen xisbiga kulmiye intay talada hayeen xisbiga wadani wuxuu idin wadaa hogaamiye sibila oo aan askari ahayn oo aan xoog wax ku doonayn oo aan jabaad wax ku doonayn oo mujaahidnimo wax ku doonayn hogaamiye ilmaha yar carruurta odayga islaanta ninka ladan taajirka nin walba simaya oo ay u siman yihiin qof walbana xaalkiisa ogaanaya
hoggaamiyaan kala qoqobayn reer awdal oo aan kala bahaynayn oo aan kala fiqinayn sidii isticmaalkii ingiriiska oon divide and rule wax ku samaynayna midaynaya awdal ayuu idiin hayaa waxaan idiin sheegayaa hoggaamiyaha asaga ah waa doorateena doorta reer awdalow inta idinka maqan maalinkan maanta ama maslaxad ama caqli xumo ku maqan eela kulmiyaannu dooranaynaa waa in awdal duminaysa waa in awdal dilaysa dantoodana aan wadin waxaan idiin sheegayaa xisbiga naga soo hor jeeda ee kulmiye waxa uu ku ololeeyey oo maalinkan maantaa sameeyey oo ololihiisii ka muuqday durba waxa ka muuqday inay dadka shiidayaan inay guryaha shiidayaan gurigii guddoomiyahay shiideen gawaadhidii bay ku burburiyeen hargaysa iyo meel walba wax nabadgelya darray abuureen shiidkaa waxa ka dambeeya berrita markaynu ka guuraysannana inay shaanidii tuuraan ayaa ka dambeeya nabadgelya darray wadaan innaku waxaynu ku codaynaynaa waa nabad waxaynu ku codaynaynaa isbeddel khayr qaba inaynu keenno kulmiye lagu beddelayaana waa xaaraan halkan waxaan ka odhanayaa waxaan caaday ahayn berigii hore weliga intaan siyaasadda ku soo jiray ma shakhsiyaynin siyaasadda siilaayo markaannu iska soo hor jeednay ee kulmiye taayirada shidayey ee dalka gubayey weligayo siilaayo kelmad kumaan soo qaadin muuse bixina sidaa darteed bay ahayd laakiin maanta waxaan u fasax qaatay inaan muuse kelmad idhaahdo yaan ka fasax qaatay waxa weeye siyaasaddu kaftanna way gashaa si walbana way gashaa waxaan ka fasax qaatay ninka la yidhaha cali guray maalin dhowayd baa waxaa laygu yidhi cali guray wuxuu yidhi berberaan dagaal ka ridayaa cali gurayna aniga wuxuu igu jiraa liiska magaynada oo waa ninaannu isku xidhannahay cali guray waan garaacay telefoonka ku garaaco waxaan ku yidhi su'aalood baan weyddiiyey waxaan ku yidhi calow ma waxaad tidhi berberaan dagaal ka ridayaa maya wuxuu yidhi siciidow been baa layga sheegay anigu ma odhana saasaan wuxuu idhi waan rumaystay hadalkiisii waxaan qodobkii labaadaan weyddiiyeyna wuxuu ahaa adaa muuse wax odhan jirae markaynu mucaaridka ahayne halkaad wax gaadhsiisayna cid wax gaadhsiinaysaa ma jirta haddaad muuse ag tagtay muuse waxbaannu ku odhanaynaaye dhaqan baannu ilaashanaynaa waxaannu ilaashanaynaa birmageydaannu ilaashanaynaa waxaana iyagu xeerinayn baannu xeerinaa may fasaxaysaa baan ku yidhi fasax baad u tahay buu yidhi anigoo fasaxa isticmaalayaan kuna talax tegayn muuse waxaan leeyahay laba eray ha ka joojiyo somalilan laba eray somalilan ha ka joojiyo mujaahid baan ahay oo darafyada u sheeganaya ha ka joojiyo waa somalilan sababtoo ay isugu iman maysa ku kala tegaysaa beelaha dhexoo uu sheeganayo oo kalba leeyahay xamar bay ku socdaanna ha ka daayo oo xamartaa markii hore ee 94kii waxa lagu xalaashaday dad baa dhiiggooda lagu xalaashaday dhib baana ka dhacdo waynu ka heshiinnay ma aha inaynu ku ololayno waxaa la xusuusanayaa nabarradii muuse taa ha joojiyo oo xamar waxbay nagama yaallaane distoorkaasaynu leennay muusow adiga iyo cirro iyo faysal cali waraabe hadday isu tagaan xamar cid ma geyn karaan adna nin qudhaad sheegaysaa waxaad inkiraysaa caqligii dadka iyo isutagii dadka iyo distoorkii dadku ku midaysnaa qof meel wax ma geyn karo shalay waxaa ku bannaysateen dhiigga dadka maantana waxaad ku bannaysanaysaa kursigaad cirro kaga ceshanaysaa taa lagaa yeeli maayo shacabka somalilan kaa yeeli maayee meesha ka saar dadka makasta ah ee kelmadaha noocaasa u rixiya ee aan la yaabayn ee ku barbar socdana waxaannu leenahay wixii somalilan ku kala tegayso ka joojiya waxaan idin leeyahay shacbiga awdalow waxaan idin leeyahay shacbiga salalow waxaan idin leeyahay shacbiga soolow waxaan idin leeyahay shacbiga sanaag barow waxaan idin leeyahay shacbigii la bamgareeyey ee buuhodlow waxay idin midaynaysaa waddani baa idin midaynaysaa waddani baa somalilan danteedu ku jirtaa isbeddel baa somalilan danteedu ku jirtaa